gudoomiyaha iyo maayirka gobolka inaan siino kabacdina isagu uu ku soo dhaweeyay imaanka si uu madasha uga duceeyo injineer cabdiraxmaan cumar yariiso welcome بسم الله الرحمن الرحيم وزير انجينير عبد عنشور وزير هذا كله قابتنا للجوجا وكميديا وزير كورفافينتا حلبان هذا قلها الشعب كيكون أقل كسرة رئيس الوزراء النهارة بقرة وجهر إمام محمد يوسف وقاسية سلادين تا يدمان مدحضر دقن كسوماليات maamulka cusub ee gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka bahda fanka iyo suugaanta oo ugu horeeyaan Faadimo Cali Nakruuma iyo Hibaaqa Ujeedo iyo hobolada waa bari sidoo kale luul oo aan aad uga mahadcelinayno kaalinta ay ka qaadatay barnaamijkan idaadihintiisa dhammaan marti sharafta dhalinyarada dumarka aqoon-yahanka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha leh waxayna tusaysaa in aad nagu dhiirigelinaysaan hawsha aan hayno bogaadinta iyo hambalyadana iyo ducada aad noo ducayseenna waxaan ilaah ka baryaynaa inuu naga aqbalo annagana naga dhigo kuwii u adeega bulshada Soomaaliyeed ee mas'uuliyadana loogu dhiibay annaga maamulka cusub waxaan naga go'an inaan u shaqeyno si daacad ah si wadaninimo ku jirto si u adeegaysa bulshada Soomaaliyeed si ka tarjumaysa danta Soomaaliyeed magaaladan caasimadda Muqdisho waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed waa qalbigii ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leenahay maamulka cusub wuxuu diyaar u yahay inuu u adeego bulshada in uu ka shaqeeyo danta shacabka bacdama dawladda federaalka ay tahay dawladda shacabka annaga maamulka cusub waxaan ku tashanay inaan noqono maamulkii shacabka rabno inaan u dhawaano la shaqeyno aan u noqono adeege ayagana ayna tilmaamaan sida ay wax u rabaan nala xisaabtamaan annagana aan ka dhabayno balantii aan qaadnay iyo xilkana lagu aaminay waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii nagu aaminay xilkan ujeedada ay nagu aaminayna ay tahay inaan u adeegno bulshaweynta gobolka Banaadir annagana aan ku hadalno magacooda una istaagno sharafkooda iyo karaamadoodana aan mar walba ka shaqeyno muddada yar labada usbuuc aan joognay runtii waxaan ku dadaalnay wax walba aan ka shaqeynayna inay noqoto danta guud iyo shacabka dantiisa waa la socotaan arrimaha dhulka oo dhib badan ka jiray oo dhulal dan guud ahaa inaan tallaabo ka qaadnay welina aan ku raad joogno inta dhiman waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo ku xad gudbi kara dhul qof kale leeyahayna ma aqbalayno qof bini aadana dhul dan guud qaadan karana ma la aqbali karo arrimahaasna waa arrimaha anoo wakiilateen taasna waa mid naga go'an muddadan joognayna waa bilownay haddana waa wadnaa sidoo kale waxaan wadnaa inaan dhisno maamulkii iyo hay-addii dawladda hoose iyo gobolka Banaadir si ay ugu adeegto shacabka muddada yaroo labada usbuucna waad aragteen inaan degmadii Wadajir iyo degmadii Yaaqshiidba dhagax dhignay si loo dhiso xarumahoodii loogu adeego bulshada dhalinyarada haweenka culimada iyo madaxda dhaqankana ay u helaan meel ay bulshadoodii kugula hadlaan ku wacyigeliyaan kaga warqaataan ogaadaan duruufaha ka jira annagana waxaan naga go'an inaan ku kormeerno degmooyinkana aan maaragtay noqdaan kuwa u adeega shacabka maamulkan waxaan rabnaa inaan daadajino oo aan gaarsiino ilaa iyo heer waax iyo laan oo shacabka deegaankaasi ay ayahooda ka tashadaan sidoo kale muddada yareed waxaan ku guuleysanay oo welina noo socdo inaan bilownay hagaajinta maamulka iyo maaliyadda oo meel fiican maraysa degmooyinkana aan geynay xarumo si bulshadii u soo doonanaysay xarunta dhexe ee dawladda hoose adeegyadii u baahnaayeen loogu geeyo degmooyinkooda qorshahaasna waa uu noo bilowday waa uu noo socdaa sidoo kale bilicda magaalada in la soo celiyo iyo in wadooyinkii la dhiso ayagana qorshahoodii waa wadnaa via Rome waa taan dayactirkeedii bilownay iyadoo aan adeegsanayno shacabka deegaanka waana sii wadi doonaa sidoo kale wadadii Sodonka iyo wadooyinkii kalena ayagana waa ku raad joognaa qaarna waa bilowdeen qaarna waxaan rabnaa in sidoodii loo sii wado arrinta kale ugu muhiimsan waxay tahay nadaafadda caasimadda barisamaadkii waxay ahaan jirtay caasimadda ugu nadiifsan ugu amni badan waxaan rabnaa inaan soo celino sumcadaas oo aan gaarsiino
haddaay barbaarta gaashaaman waxay dhaheen banaadir bilicduu lahaay barisamaadkii u bukaan marka annagana bukaankaas inaan ka baabi'inno oo bilicdii iyo barisamaadkii say ahaan jirta soo celino waa wax naga go'an oon ku shaqayn doono sidoo kale waxaan rabnaa arrimaha adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka inaan ayagana aad uga shaqayno waa la socotaanoo iskoolkii 15 May oo taariikhda lahaa inaan isagiina soo celinay macallimiin masaariin ay joogaan ujeedaduna tahay in ardayda Soomaaliyeed ee bulshaweynta gobolkan degan ay helaan waxbarasho lacag la'aan waxbarasho tayo leh laguna noqoto dad u adeegi doona bulshadooda sidoo kale waxaan degmada Boondheer ayagana ku furnay muddadii yareeda koobneed barnaamijka waxbarashada dadka waaweyn gaar ahaan haweenka ujeedadu tahay qof kasta oo Soomaaliyeed inuu noqdo qof wax aqrin kara waxna qori kara si loo helo bulsho wax aqoon leh aqoontu waa iftiin bacdama aan doorashooyin rabno 2020 hal cod iyo hal qof in qof walba uu noqon karo inuu u codeeyo qofka uu dantiisa iyo danta dalkaba ku jirta taasna waxay ku imaan kartaa bulshadeena oo noqoto bulsho aqoon leh aqoontana ay horseedo sidoo kale waxaan rabnaa arrimaha iskaashatada gaadiidka oo iyadana arrimo ka jireen muddadii koobneed waan isu keennay dib u heshiisiinaan dhex dhignay waxaan rabnaa ayagana inay noqdaan iskaashato u adeegta bulshada oo gaadiidka ay noqdaan gaadiid dadkuna maaragtay ku heli karo si raqiis ah una adeegi kara bulshada Soomaaliyeed intaas ka soo waxaa la socotaan muddada labada usbuuc ka mid ah waxaan shacabka weyn ee gobolka Banaadir aan ku matalayay barnaamijkii madasha qaranka iyo kulamadii socday oo madaxda qaranka iyo dawlad goboleedyada madaxdoodii oo aan anigana ku matalayay shacabka gobolka Banaadir madaxda iyo dawlad goboleedyadana waxaan u sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu yahay maamulka kaliya ee degmooyinkiisa oo dhan gacanta ku haya maamulana marka loo fiiriyo dhammaan dawlad goboleedyada kale oo dhan dhulalka iyo deegaanada ay sheegtaan midka kaliya maamulka ee gacanta ku wada haya waa gobolka Banaadir isagana waxaan muxuu naga go'an annaga talada in loo dhaweeyo shacabku ay noqdaan kuwa aayaha mustaqbalka dalkan ka tali doona intaas ka soo annaga arrimaha aan rabno inaan xoog saarno oo rabno shacabka inaan kaashano shacabka nala shaqeeyaan arrimaha amni la'aan wax noo hirgalay ma laha amnigan wuxuu ku imaan karaa shacabka iyo hay'adaha amniga wada shaqeeya maamulka gobolka oo garab lagu siiyo qof allaale qofkii ummadan dhibayana la iska qabto farta lagu fiiqo annagana waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si adag arrimahaas idinka la shaqeyn doono waxaan kaloo rabnaa magaaladan waxaa la aaminsan yahay inay tahay magaaladii ummadda Soomaaliyeed isku haysay midnimada qaranka ka shaqeynaysay duruufo adag soo martay 27 sanana wixii dhib ku soo dhacay weli dad adkaysi badan oo u taagan oo jecel dawladnimo jecel midnimo jecel Soomaali weyn ayaan maaragtay runtii ayadana ma noqon karto ummadda Soomaaliyeed ee degan shacabka gobolka Banaadir iyagoo u taagan midnimadii qarankii dawladnimadii wadan jecel dawlad jecel inay xuquuqdooda waayaan ma dhici karto waxa aniga mas'uuliyadda la ii dhiibay waxay tahay inaan xuquuqda gobolka Banaadir shacabkoodii u istaagno geed dheer geed fuulno u korno taasna waxay ku imaanaysaa nidaam iyo system waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed inay nagu kalsoonaadaan kalsoonidaasna ay noogu daraan wada shaqeyn si aan u wada gaarno hadafka aan wada hiigsanayno ee ah Soomaali oo nabad ah Soomaali oo horumarta Soomaali oo caalamka la tartanta intaas ka soo gobolka Banaadir waxaan rabnaa inuu noqdo caasimadii ummadda Soomaaliyeed oo la tartamaysa caasimadaha adduunka si ay u dhacdo وين كشقين أمني وين كشقين نظافتي وين ديبنا عنشورها سيا بالشدة وأذيقنا إن وحبر الشو يصيرنا أريمها صدق وأريمها رنتي نويا لا وحنا إذا كعد سنة بقادين تي هم بليا إن الدعاء وقدرتان نو دعيسان بالشدة بنادرو كوبا هن كنا بالرجان أيه هداي بربارتي رادين هذا بالرجاس وحنا ذكرنا إنه نقد متجوكته مت طبقة مت نقول حاجة دانت جود أن كود الشقيين أنا وحنا نقول بلنا إن سيدا عدنا كجرتو كلسوني كجرتو أنا إذا كوا أذيقنا أنت أسكدب مركلة ويدين مهد علنا يا حفلة إذا يقبل قابل هذا وحنا ربنا إن معاملك عصب ونقد معاملكي شرفتي كرامتي سوعلي معاملكي بلشدان قبل كبنادر حقوق الهايين هلان بلشة كستو سومالي قبل كستو جوكتن وحن ربنا
xuquuq isku mid ah inay wada helaan si ummadda Soomaaliyeed ay u noqoto mid bid ah walaalo ah wada jirta intaasna waxaan ka codsanaynaa inaad nala garab istaagtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tiirsaday hadba keena taagdarane taageere weligiine ha noolaato ha israacdo ugaas cabdidaahir ugaas soo dhowow si aad imaanka ugu soo dhowayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan leeyahay madaxda halka isugu timid oo nuuc walba leh magacyadooda oo dhan aanu soo koobi karin waxaan leeyahay mid walba kamida anoo magaciisa ku salaamayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yiri hadalku waa aruuray meeshaan ku soo aaday aniga imaamku meeshaan hadalka ku lahayn oo gabagabada ahaydana laga siiyay marka waxaan leeyahay haddii aad kasteen xibinta nin walba ku leeyahay hadalka ama goobta la joogo aad iyo aad ugu mahadsantiin waxaana leeyahay gudoomiye war ma harin taageero buuxda oo hiil iyo ho aan kula garab taagana oo aan ahayn mataqaanaa iska sheeg ee naga dhaba inaan isaas naga tahay aanan yeeli karnana ragga dhinacyada ka fadhiya marqaati ka oo inaan hawshayada iyo maaragtay isgarab taagayagu uu macno weyn leeyahay ragga aan wada shaqaynay oo mas'uuliyadda aan wadaagnay ayaa xogogaal u ah adiga laftaaduna intaas waa wada joogno marna kama aadan maqnayn hawl kasta oo socotay maamulka soo marnay waxaan ku faraxsanahay inaan in badan meelihii aad maamulka uga jirtay mar walba aan si aan caadiyan ugu qanacsanayn tanna farxad gaar ah iyo waxay noo tahay mataqaanaa suurad ama sumad aan isleenahay meeshii la rabay ka timid sidii ragga hore u yimid waana maaragtay meel lagaaga hiili karo adna aad ka socon karto insha allah marka hadalku waa gebagebo waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo saaxiibkay imaam maxamed yuusuf oo maaragtay aan in badan isla qariibnay hawl badanna soo wada marnay imaam ku soo dhowow أبهرته إيمان محمد وقاو ومضاد أبهرته إيمان محمد وقاو ومضاد أبهرته تسمعينه ومضاد أبهرته إيمان محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ومضى هلك سقوط مدي oo wasiir leh oo ra'iisul wasaare hore leh oo duq hore leh oo culimo diin leh oo fanaaniin leh oo hadii alla yiraahdo telefishin iyo adduun iyo waxa wahay warfaafinta leh idin soo oo duubabka dhaqan kale idin soo kala koobi kare waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadalku waa gabagaba waana la daalay warkaan dhihilahaynay mar kale aan isdhihi doonaa إلهي إذن الله أقبل الله أجيبه الله أسكوكينا عفيه مراد كينا الله سهله وذات كان لودي بس الدنا عصبنا الله ودي برايو وسيرة وهاجر لك وحكمها أنت مدة ما جرنا الله فضو دايو بلا يديد الله كدبولا إلهي إذن كيسة ما شيء كف يوده الله تصو ما شيء كبكتنا الله كدبولا وأود عين سمد الله كأجيبه إلهي إذن كي أمد أورون الله كدقو أسجنا أنك كوي لا شغي الله نقدقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.